Assalaamu calaykum. Halqadan waxaynu ku soo qaadanaynaa mashaariicda mas'uuliyadda. Mashaariicdani waa kuwo hoog iyo jab u horseedaya aadamaha oo dhan, masiibana ku noqonaya adduunka iyo waxa guud saaranba. Dhibanaha koowaad ee ay dilayaana waa iimaankeena. mashaariicdan badankooda tijaabadooda way socotaa, dhawaana way soo bandhigayaan, waxaana iska caabin karaa ruux iimaan dhab ah leh. mashruuca koowaad waa Blue Beam, falaadhaha buluugga ah. waa mashruuc loo adeegsado aalad la yidhaahdo hologram. waxa uu sawirayaa muuqaal aan jirin, balse aad u arkayso xaqiiqo inuu yahay. ujeedka ay ka leeyihiin waa in soo dhawaanshaha dajaal ay ummad waliba wixii ay caabudi jirtay samada ugu sawiraan, si ay ula hadlaan oo u yidhaahaan ilaahiinii waa ka soo baxay raaca. waxa ay ka duulayaan xadiiskii nebiga. wuxuu ku odhanayaa nin reer miyi ah, waalidkaa haddaan kuu soo nooleeyo ma i rumayn? markaasay laba shaydaan qabriyadii waalidkii ka soo baxayaan, kadibna ay ku odhanayaan aabba iyo hooyo rumee waa rabbigaaye, sidaasna uu ku raacaya. While ago when we were talking to her. We're going to do something that's never been done on television before. We're going to bring her in from Chicago into the Situation Room right into the CNN Election Center, excuse me, right now. I want you to watch what we're about to do because you've never seen anything like this on television. Hi, Walt. All right, big round of applause. We did it. There she is, Jessica Yellen. I know you're in Chicago, but we've done something, a hologram. We beamed you in. We beamed you in here into the CNN Election Center. I want to talk to you as I would normally be talking to you if you were really face-to-face with me. I know you're at least 1,000 miles away, but it looks like you're right here. Tell us what's going on in Chicago right now. Well, there are massive crowds gathered outside here, as you just saw. 65,000 ticketed Barack Obama is, and so there's real passion for him in this town, Walt. And where is he and his family? Where are they now? Where are they watching all of this? They might be watching us right now on their own monitors, wherever they are. Barack Obama is at the Hyatt Hotel nearby, where he's going to eventually be watching election return. Software engineers and designers can visualize new prototypes by changing shapes, colors, testing new ergonomic, cutting design time and cost dramatically, saving over 10 million euros on each project. So as we blend the real and the virtual together, the car that I have in my hand right now. Valentin, can I have something a little nicer, please? Thank you, Van. So as I put the hammer on this table, oh, you missed it. Let's try again, Valentin. As I put the hammer on this table, we are going to start a race by producing a 3D element. People visualize how these projects will change their surroundings. And
And once again, you can see here how this 3D building is perfectly merged to these rooms. So Valentin, as we have this building, can we have an heliport? Thank you, Val. And as we have an heliport, can you fly an helicopter? Thanks. So these changes are also a great value to the entertainment industry, letting them storyboard new elements instantly and keep overall costs down. But look who is inside the helicopter. I think you know her. Oh, Chris. I didn't know you learned to pilot an helicopter. That's great news. Well, on top of that, we can even do lighting and environment mapping to get this 3D object as real as possible. So on location, on battlefield, in the research lab, on the road, or even in a badiba adduunweynuhu wuu ku degmaya mashruucaas waayo badankoodu ilaahay ma rumaysna iimaanna ma laha mashruuca xiga waa mashruuca loo yaqaano HAAB High Frequency Active Oral Research iyo Program waa mashruuc la xiriira tamarta waxaana lagu maamulayaa cimilo gooreedda dhul gariirka iyo wixii lamid ah ujeedka ay ka leeyihiinna waa in dawlad kasta oo iska caabido loogu hanjabo in dhulka lala goynayo maadaama ay og yihiin in aanu dajaal soo baxayn ilaa lagu noqdo xilligii seefta iyo faraska waxay ugu talagaleen inay teknolojiyadda adduunka ku cirib tiraan mashruucan marka ay ka dangaadhaan teknolojiyadda adduunkuna waxay tiirmaysaa marka waddanka gacanta ku haya la dumiyo sidaas awgeed marka ay ka dangaadhaan teknolojiyadda ayay Jabbaan dhulgariir baabi'iye ku dhufanayaan unknown flying objects waa mashruuc ay adduunka ku baqagelinayaan oo ay ku sheegayaan in dhulka laga soo weeraray dhanka iyo samada iyo meerayaasha kale oo wax duulaya oo aan la garanaynin ay soo weerareen ujeedka ay ka leeyihiin waa in dawladda aan nidaamka cusub ee caalamka iskeed u qaadani ay qaadato iyada oo ka magan gelaysa walxahaas duulaya kana codsanaysa in la ilaaliyaan I can tell you right now that 99% of every UFO sighting that has ever taken place has actually not been an unidentified flying object, because this has always been military technologies. Since the 60s, the amount of people who believe in extraterrestrials has skyrocketed, and it's only increasing day by day in our modern world. This only confirms the success and the plans that are taking place to first manipulate you to believe in UFOs, and second to conduct a UFO attack that is going to force the whole world to unite to fight off this enemy and accept the New World Order.
former Canadian government official, is warning we may be on the verge of intergalactic war, saying, quote, the Bush administration has finally agreed to let the military build a forward base on the moon, which will put them in a better position to keep track of the comings and goings of visitors from space, and to shoot at them if they so decide. I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him, during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space, because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system, the first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. And the last card would be the extraterrestrial threat. Mexican Air Force pilots capturing on videotape what are said to be 11, count them, 11 UFOs. There is a strong case to be made that secret military technology offers a convincing explanation for many UFO stories. Anytime the government has secrets that they can keep from us, they can manipulate us by those secrets. In essence, they still remain 25 years at least ahead of us in technology, information, and knowledge, and secrets, and they are using them against us. I heard over the years many times over that the plan to usher in the New World Order would be to make all the people in this country and around the world feel totally helpless to prevent the New World Order from occurring, this world dominance plan, by saying that we had been invaded by aliens, so that we would say, oh please UN, come in and help us all. So bear in mind that there is a plan, orchestration, through the secret technology and information that they're keeping from you under the blanket of a so-called national security. Like William Shakespeare said, the whole world's the stage and we're just the players on this thing, which is actually correct. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. مشروع xiga waa hawo sun ah oo la yiraahdo chemtrail. waa sun lagu sii daayay hawada si meeshaas looga mamnuuco roobka waayo daruurta way kala iridaa falaaraha qorraxda ee nafciga lehna way xabistaa marka ay dhulka soo gaadhana dadka cudurro ayay ku sababtaa waana sunta maalin walba dusheena ay diyaaraduhu ku sii daayaan ee aynu u naqaano qiiqa diyaaradaha. طبقة بيضاء من الثلوج تغطي أسخن مكان على وجه الأرض، صحراء لود بإيران. من الجراد الأحمر اجتاحت مصر وشمال إفريقيا وشمال البحر الأحمر وجنوب شرق آسيا. محاصيل زراعية أصابها التلف بسبب انخفاض درجات الحرارة، فيضانات تغرق هذا الجزء من العالم.
وجفاف حد المجاعة والموت في جزء آخر، حرائق غابات تندلع. لا الصيف أضحى صيفا ولا الشتاء شتاء، والإجابة أكثر من مرعبة. تقنية اسمها الكيمتريل هي وليدة مشروع الدرع الأمريكي الذي يستخدم الهندسة المناخية. طموح للسيطرة على الكون دون حرب تقليدية ستستمر حتى العام 2025، حيث بات يشاركها في استخدام وتطوير هذه التقنية الكيان الصهيوني. waa aalad gacanta ama jirka kale lagu beero oo qofka lagu maamulo una go'aaminaysa rabitaankiisa iyo waxa uu sameynayaba. waxa ay damceen marka ay lacagta adduunka ka dhigaan koronto inay dhammaan bulshada caalamka shariixadan jirkooda lagu beero, waayo qofku cidna lama macaamili karo haddaanu shariixadan lahayn. mar haddii aanu qofkii wax iibin karin, waxna gadan karin, lacagna heli karin isaga oo shariixadan hela mooyaane, dadku waxay u tartami doonaan isku beeristeeda, maamulisteeduna way sahlanaan doontaa. Pour the money in those chips, and they control the chips, and they control food, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intention. Get the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned on. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. Now you're really one of us. Amazing, isn't it? Everything we think of that makes up a person, thoughts, emotions, history, all wiped away by chemistry. 4. He's gone. It's me.
Shut it down. No. I'm not gonna ask you again. Do it. Shut it down. I admire you willing to die for what you believe. But so am I. Now shut it down and wipe the program. مشروع xiga waa subliminal messages ama fariimaha dahsoon. nin haysan jiray tiyaatar ayaa hindisay farsamadan oo shaashadii ay dadku daawanayeen iyo codkii ka baxayay u soo raaciyay cod aan la maqli karin balse garaadkaaga gaadhaya. codkaasina waxa uu ahaa haddii aad gaashootay salool cun, haddii aad haraadina kooki cab. ninkii intii uu 2 bilood ku iibin jiray ayuu maalmo ku galay. arrinkiina mas'uuliyadda ayaa ogaatay oo intay ninkii dileen ay farsamadeena u adeegsadeen danahooda. fariimihiina iyaga oo maqal iyo muuqaal leh ayay soo geliyeen aaladaha laynagu ibtileeyay. markasta oo ay badato daawashada aad aalad daawanaysaa fariimo aadan dhaadaynin ee kugu socda. fariimaha dahsoon waxa lagu bilaabaa carruurtu marka ay yar tahay oo caruusada ilmaha yar loo soo iibinayo waxa ay sidaa fariin dahsoon bal ila arka. fariinta dahsoon ee ay xabaarsan tahay waa in gabadha soo koraysa looga dhigo qaawinta timaha iyo xidhashada haaf gaaban iyo dharka ku dhegsan in ay yihiin qurux iyo horumar. musalsalada dumarkeenu daawadaan ee had iyo habeen ay hor fadhiyaan waxaa ka buuxa fariimo dahsoon oo aan la dhaadaynin. fariimahaas waxaa ka mid ah fidinta qaawanaanta iyo in gabadhu dharka iska dhigto. fariimaha dahsoon ee musalsaladu gudbinayaan waxaa ka mid ah in inan kasta yeelato nin ay jeceshahay iyo in laga dhigo wax caadi ah inay la kulanto oo la soo cashayso. sidoo kale fariimahooda waxaa ka mid ah in lagu soo celceliyo indhaha daawadaha khiyaanada lamaanaha iyo gogol dhaafka, taas oo keenaysa marka ay soo noqnoqoto inay caadi qofka la noqoto.
Images and suggestions are implanted directly into the mind without viewer participation.